magaalada Kismaayo waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliya waxay xarun ku meel gaar u tahay dawlad goboleedka Jubbaland waayadii u dambeysay waxa dib ugu soo laabanayay dadkii hore uga barakacay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalkeena haatan Kismaayo waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu bulshada badan deegaanada ay Soomaalidu degto kasoo horumarada ka jira magaalada waxa marar badan soo wajaha biyo yari saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa siyaabo kala duwan u helay biyaha sida ceelasha caadiga ah iyo kuwa lagu qodo riigaga loona farsameeyo si casri ah waxa magaalada ka howlgala shirkado biyo-gelin ah walow aysan si dhameystiran u buuxinin baahidii biyaha shirkadda biyaha caafi waxay ka mid tahay shirkadaha ka howlgala magaalada Kismaayo isla markaana loogu isticmaalka badan yahay magaalada balse maalmihii u dambeeyay waxa ku yimid cilad farsamo taas oo muddo hakad gelisay biyihii ay siin jirtay bulshada بشار معن حسين وكمذا معمولك شركة بيها عافي لنا هذا جوبلاند تي في أيا كور بحيي سووها بيها هكت كجليي إيه علده كتمد الحمد لله حواه وحاجة دي بشهر نوفمبر حواه إنه حواه دي بدع أرميه بيه شركة كسين جرت أرمها سوكوي مد حارة جر أوجد أو شركة أول سيستم يكون شغال جرتي سيستم كي كجوريسة هذا وحي جوريسة سيستم كله أو بلارنا إن بيه لبضيو energy korontada oo faraha badnaan la dhibo markay sidaas tahay marka systemyada shaqeyn jira oo dhowrka xaba aha qayb kamid ah waxay ka shaqeynayaan qoorda farsamaqaanada ama injineerada shirkadda u shaqeeyo ay ka shaqeynayaan maadaama marka shirkadda ay qaybaha ay shaqo culus ay ka socoto waa suurtagal weysay marka in macaamiishan biyo la siiyo shaqadina la wado waa suurtagal weysay dhowr baleenan daminay oo had si aad soo aragteen ay shaqo ka socoto qayb kaloo oo sii deynina waa jirtaa oo kamid ah kuwa laga cabo sidii water point-yada ama maxaa la dhihi jiray branjyada oo dadka ka cabaan baabuurta ka dhaansadaan marka qaybtii oo tuubada pipeline-ka oo xaafadaha la geliyo oo biyaha ugu jireen ayaa hakad ku jira ayakan hadda waxaan diyaar u nahay isbuucan soo socda markii qodan farsamada ay gacanta ka qaadaan inaan u sii deyno haddii Ilaahay yiraahdo عويس شيخ محمد وكمذا إنجنيرada shirkadda ayaa sheegay in ay keeneen qalab ka maqnaa shirkadda isla markaana ay wadaan farsamadiisa waxa uu na sheegay in mar dhow ay xalin doonaan ciladii taagneyd والله حكد مجري لكنه عاجل وحمرينا مانت نظام عصب عرفت هذا الجيل الرابع الدنيا ده مانت حمريسا عالمك خاصة بيها نظام تربضان نظامك هذا مانت ان قارني وأن جعلنا إلى يعني إلى أسبوعا أنت كلم من آسيا ونظام محجر اللي يراده عصري 2008 بشي شناد اللي سميه أو United States of America أي سميه واللي هذا recovery exchanger مركا الحمد لله إلهي أود داسله أود ويلنا إنا ما أنت يعني دتك أجوري عالم ك مركا لقى صوت خليج كأي دولة غنية إن النصيب ويلنا إن شركة عافية ما أنت هوشاس خبطه مركب وحاد أقوم هالعلينا إنا إمادين أو أركتان ما أنت هوش ماشى أي مريسو مركب وحاقول تلقلني مع ميشا أما مواطنين تدقن جوبلاند إنا عن هوشاس وخبرنا إن الأجادان وأنا في عنتها وأنا كم هالعلينا إن شاء الله قلب كانوا حيرضون وكسو كرين كرا إكسشانجر وحاجة كم ده استعمال كمان الاستعمال إلكتريك باور وأكتاي وحان استعمالنا والديزل كان دبعته بدن إيو أود بدن واستعمال كده دبعته كتاي مركز الله استعماله إن خرج كوبحاي ودن كان ودن بترول الله ما وأكتاي عالم كمان وكعمل وأودجا مركز أي أركان دول ده هو مرة دبعته ده كتاجن نوع عاص استعمال كإلكتريكال باور مركز وحي أودين إني سميان نظام اللي يراد اكستشارجر باور والله وتلقى إن قوة استعمالنا هوس أو نقول مركب وحن مرينا مركب جيلكي أفراد وحكلا حقو هدو إلهي ديني أنا يعني سيدا أصوص ميني قيب كميدا قيبتنا هذا عافي عيالشا إنا كل حد السولار هدنا مركب وحا أول دونا أيضا لفتد إنا كل حد دونا السولار سي أصو يرينو عليس كسارن لنا على الديزل كأيو شدالك فإذا قولت عبد القادر جوبلاند تي في مقالة Kismaayo